waxaan ahaa anuu markii hore in Hargeysa jooga nin xidhan baan ahaa Hargeysa gudahayga markii aan joogay jeel baan ku jiray laakiin markii aan halkan soo galay waxbarasho wanaagsan baan ka helay indhaha ay furmay waxna maan qori jirin waxna maan akhriyi jirin waxaan mahad weyn u mahadnaqayaa jaamacadda Badr waa maalin aan isleeyahay iska daa Soomaaliland Afrika oo dhan ayay wax badan ay runtii u tilmaamaysaa barnaamijkan waxa ka wada shaqeynayay jaamacadda Badr iyo wasaaradda cadaaladda laakiin ammaanteeda waxa iskala xukuumadda oo hormadu ku yahay runtii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ugu horeen waxaanu sameynay qiimeyn assessment research caadi ayaanu sameynay arday kasta wuxuu rabay inuu barto iyo wuxuu daneynayay ayaa researchka lagu soo saaray maanta ardayda halkan fadhida oo ah tiradooda ay tahay 132 arday waxay ka qalin jabinayaan qaybo kala duwan waxay ka qalin jabinayaan postgraduate diploma education-ka ah ardayda labaad ee maanta iyagana baxaya qalin jabi waxa weeyaan ardayda ka baxay farsamada gacanta waxa kale oo maanta fadhiya ardayda ka qalin jabisay akhriska iyo qoraalka iyo xisaabta iyo carabida oo basic education-ka waxa fadhiya runtii arday ka qalin jabi luqadda carabida waliba ka gaadhay heerka diblomada sare ayaa meeshan fadhiya waxa iyaguna runtii fadhiya arday bayskii shareecada dhiganaya oo iyaguna shareecada islaamka bayskeedii wada ayaa halkan fadhiya mahadnaq maalintan duuliyan ka jeediyo jaamacadda Badr ee u soo dhiiratay inay baqranayaan arintaas soo bandhigto iyo cidii garanaysa wasaaradda cadaaladda hay'adda ku garab gashay si weyn bay ii farax gelinaysaa inaan kaga soo qayb gal halkan qalin jabintiina waxay tahay taariikh ka mid noqon doona taariikhayga laakiin ana anigu sameeynin ee ay sameysay jaamacadda Badr waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inay kuwa hadda ku jiraay ay ku fikirayaan too anagu maxaa ka reebay in halka fadhiisato waa jid la jeexay ay Badr jeexday weeyaan kelmado uguma mahadnaqi karo iyaga iyo madaxweynaha iyo dawladdan xisbiga kulmiye ka inay taa iyagu fududeeyeen waxaan aad ugu mahad celinayaa barnaamijkan cidii hormuudku ahayd wasaaradda cadaaladda Jamhuuriyadda Soomaaliland jaamacadda Badr oo nagala joogo gudoomiyihii jaamacadda Badr Mubaarak wuxuu jaamacadaha kale ee dalka uga dheereeyay waa nin garyaqaan waa nin sharciga bartay sababtaas kaliftay inuu hormuud u noqdo baahda cadaaladda ama jaska ama dadka maxaabiista ee dhaqan celinta lagu sameeyay inuu hormuud ka noqdo waxa ilaahay mahadi idina ina maanta idinkoo jeel ku jira ina fursad u hesheen oo waliba xaq ah maanta hadda tacliin hesheen ilaahay mahadi idinkuna ina dadaashaan ayaa meesha ku jirta mahadnaqan waxaan u horeysiinayaa ardayda qalin jabinaysa ee gartay inay fursadooda ka faa'iideystaan degsimooyin intaas oo tira oo iskuul lahayn baan maalin walba sheegnaa oo niyadeeda ay ku jirto inaan iskuul ka dhisno sanadkii marka dhamaanaya waxaan dhisnay 100 iskuul waxa hadaba aan ku darsanaynaa markii hore noogu jirin xarumaha toosinta marka taliye iyo wasiirkiiba waxaan leenahay xarun kasta dhul una siiyeedu ma dhul hadaan sii kari weedaan oo tiraadaan fooqan ka dul dhisa iskuul jaamacad lagu dhigto tafsiirka lagu dhigto wax walba lagu dhigto buugaagta macallimiin xitaa inaanu keenno Badr baynu hogaaminaysaa Badrna ay horseedka ay noo ahaato waa maalin farxadeed maalin qiimo badan weeye maalin aanu kala soo qayb galay waa naga mid ah oo runtii sabab kasta ku soo galaan ha jirtee qadar ilaahay ku yimi xabsigan Hargeysa oo maanta ka qalin jabinaya waxbarasho kala duwan oo sala soo sheegay qaatay heerka koobaad jaamacadda iyo heer labaad jaamacadda qaatay qaarkoodna waxbarashada asaasiga ahayd iyo diintii iyo quraanka iyo carabida ay barteen waxaan dhammaan ugu horeyn ugu hambalyeynaya shahaadadaha ay qaadan doonaan iyo farxadda aan la wadaagayno waan ugu hambalyeynayna waa maalin taariikhiya waa maalin weyn waa maalin qiimo leh waa maalin aan hore inoo soo marin oo aan ka dhicin dalka Soomaaliland intuu dawladda ahaa ama aan ka dhicin dawladaha Afrika in 132 maxbuus oo heer kasta oo jaamacadeed isugu jira ay qalin jabiyaan hambalyo baan idin leeyahay waxaan u mahad celinayaa jaamacadda Badr oo ugu horeeyo gudoomiyaha jaamacadda Badr Mubaarak Axmed Aar waxaan wasaarad ahaan ballan qaadaynaa waxbarashadan socota ee aynu maanta ka qalin jabinayno inay sii socon doonto iyo in aanu gaarsiino dhammaan jeelasha dalka waxaanu iyaduna ballan qaadaynaa
intiina wax baratay iyo intiina dhaqankeedu hagaagay iyo intiina shuyuukhda noqotay iyo inta qur-aanka xafidayba inaannu u doodno wasaarad cadaalad ahaan madaxweynaha ka barino u sheegno hor dhigno in la cafiyey in alla intii dhaqankoodu hagaagay farriinta maanta halkan aan ka gudbinayaa waxa weeye cid kasta oo ummadda somalilanah oo aaminsanayd jeelka in ciqaabi ka jirto in xuquuq darro ka jirto inuu jeelku meel lagu silcayey yahay inay halkan ka daawadaan indhahoodu arkaan jeelku inuu yahay meel wax lagu barto meel laga qalin jabiyo meel dad mastari ka soo baxaan kuwa bachelor ka soo baxaan kuwa quraanka xafidsan ka soo baxaan waxaan aad iyo aad horta ugu mahad celinayaa marka hore jaamacadda nasiibsay koorsooyinkan Beder University annaga laftiga waan isku mahad celinaynaa dee halkan iska fadhiyi lahayn ee aanu shax iyo maxaa la dhuu iyo waxa yar iska ciyaari lahayn waxaanu ka faa'iideysanay waqtigii oo aanu marka hore shanta cibaadadu baanu haysanay intii kale iska fadhinay ayaanu ku darsanay in aanu waxbarasho gelino marka waxbarashadii ayaa maanta na soo gaarsiisay in aanu qalin jabino qaybta farsamada iyo electricianka ama iyo qaybinka faraha badan ee kalaba waxaan leeyahay dhalinyarada magaalada joogta waan hadayna waxba ku haynin xagga waan halkan oo culunti taalaayo nasashada macabariska diidka yar qaldan yahay halkan kaalay aan leenahay kaalay halkan wax ku barta weli sidan oo waxa weeyaan alaabahan dhan oo la siiyay iyo alaabahan dhan oo la keenay wala UN-ka nooma keenin marka waxa weeyaan dalkii isku filnaanshu gaaray oo jaamacadihii Beder jaamacadii way ka soo baana qaaday waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo xaqiiqatan markii la doortay intuusan kursiga ku fadhiisan ka hadlay maxaabiista waad ogeydeen oo markii ramadaantii waa asiga afur noo sameeyay halkan lagu afuray marka waxa muuqatay markuu kursiga ku fadhiisanay ilaa maanta oo aan jaamacad ka qalin jabinayno in uu maskaxdiisa ku jirtay maxaabiistu isla markaana sabab u ah in maanta xafladani dhacdo sabab u yahay si gaar ah waxaan ugu mahad celinaynaa jaamacadda Beder oo xaqiiqatan ahayd fursadda koobaad ee na soo martay anugu tusaale ahaan waxaan xidhanahay 16 sano iyo dhowr bilood 2004 la soo xiray anigoo aad u yara la soo xiray ilaa maanta waan xidhanahay anigoo isku buuqsan oo xaqiiqatan xaalkayga ilaahay garanayo ayuu mubaarak aarnoo yimiday markaas wuxuu noogu bishaareeyay inuu jaamacad aan halkan ku dhiga doono maalinta wixii ka dambeeyay waxa la dhihi karaa maan xirayn xaqiiqatan markay wax barasho ay leeyihiin waa mar wax weyn qaylinayaan waa mar istilayaan waa mar wax kala sameeyaan marka wax barasho jirto nin walba wuxuu ku fikirayaa wax barado wax bartay meesha kala qaado maktabadana waa qayb kamid ah runtii oo la rabo qofka maxbuuska inuu isku bedelo oo runtii anagu suurtagal noomay noqoteen haddii aanan heli lahayn taakuleynta iyo caawinta muxuu ahaayay in wasaaradda cadaaladda